Isbeddelka cimiladu waa dhacdo dhab ah oo ay Soomaaliya wajahayso. Isbeddelka cimiladu waxa uu keenaa roobka oo yaraada, wax soo saarka dalagga oo hoos u dhaca, iyo abaaro isdaba joog ah. Sidoo kale waxay keentaa inuu bato heerkulka iyo sare u kaca heerarka badda, taas oo ay ka dhalanayso khasaare nafeed oo ay sababteedu tahay deegaanada nugul ee sida xadka baxa ah looga faa'iidaysto iyo burburinta kheyraadka dabiiciga ah. Isbeddelka cimilada ee Soomaaliya ka jira ayaa keena saameyn ba'an oo ka dhalata abaaraha iyo daadad xooggan oo uga sii daraya saboolnimada baahsan ee dalka ka jira, taasoo ay horseedayso macluul dhib badan iyo khasaare nafeed oo dadka iyo dunyadaba soo gaarta. Xaalufinta dhirta iyo dabaylaha xooggan ee dalka ka dhaca dartood ayaa ka dhigaysa cimilada mid waxyeello leh, taasoo keenaysa in abaar xuni dhacdo. Kor u kaca heerka baddu waa natiijo toos ah oo ka dhalata kulaylowga dunida. Hagaag daawadayaal iyo dhegaystayaal, dhammaan muuqaalada aad aragteen waxaa sabab u ah isbeddelka cimilada. Haddaba su'aashu waxay tahay, sidee loola tacaali karaa isbeddelka cimilada? Heshiiska Paris oo looga hadlayay isbeddelka cimilada ee adduunka wuxuu ku baraarujinayaa waddamada caalamka inay sameeyaan dadaallo hiigsi leh si wax looga qabto isbeddelka cimilada iyo la qabsiga saameyntiisa, iyadoo la xoojinayo taageerada iyo caawinta waddamada soo koraya si iyaguna uga qayb qaataan wax ka qabashada isbeddelka cimilada. Si looga fogaado saameynta isbeddelka cimilada, Soomaaliya waxay go'aansatay inay bulshada la wadaagto wacyigelin ku saabsan maareynta kheyraadka dabiiciga ah iyo horumarinta tamarta nadiifka ah. Qof kasta oo Soomaali ah waxa uu xaq u leeyahay inuu helo deegaan caafimaad qaba iyo kheyraad dabiici ah, kaas oo laga ilaaliyay in si xad dhaaf ah looga faa'iidaysto. Soomaaliya waxay ka mid ahayd dalalkii saxiixay heshiiska, waxayna ka qayb qaadataa wax ka qabashada cimilada. Haddii aan si wadajir ah u wada shaqayno shacab iyo dowladba, waxaan wax ka qaban karnaa saameynta isbeddelka cimilada, waxaan ilaalin karnaa deegaankeenna, kheyraadkeenna dabiiciga ah, una gudbi karnaa mustaqbal waara oo barwaaqo ah. Aan ka wada shaqayna yoolkan oo aan mustaqbal wanaagsan u dhisna dalkeenna.